madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Eritrea Ismaan Saalax Maxamed. Kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeedada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland. waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha inka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama khaarijiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Ismaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeedada safarkiisani. The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Isaias Afwerki at least to know the situation. wafdiga Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha iyaga Isaias Afwerki si ugu yaraan aanu u ogaano waxa ka socda Soomaaliland. waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun. dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabatayntiina la saaray. waanu ku rafaadsanayn in aan ka madax bannaanaano waxaas oo culays ah. haddana waxaa saldhigay nabaddii Afrikada bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia. waxaana wada bilownay wada shaqayn. waa tii aan maqnayne haddana waa wakhtigii aanu imaan lahayn Somaliland si aan u indhaindhayno xaaladda. haddana waxa aan la kulannay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimadba lahayd. waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyey ee noocaana. waxaanan rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad, saddexaad iyo kulamo sii socda. The last vertical meeting or the last vertical visit will be second, third, continue. wafdigani ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Somaliland iyadoo isbedel laxaad leh haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbedelkaasi. waana markii ugu horeysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Somaliland.